magaalada Nairobi ee dalkani Kenya ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay musharax madaxweyne ee dowladda Soomaaliya Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah waxaana ka soo qayb galay dhalinyaro haween ganacsato iyo siyaasiyiin uu ka mid yahay fanaankii weynaa musharax xildhibaan Farxaan Xidig dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa waxay ka soo jeediyeen khudbado ay ku taageerayeen musharax madaxweyne ee dowladda Soomaaliya Professor Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وائد السلام مدحوين واكو سلامي دقنك وائد السلامي دلنيرد وائد السلامي دلنيرد وائد السلامي دمرك قرح دبدن وماشي نص عمرين واد سلامي waxaa idin leeyahay madaxweynaha ayta 2021 insha Allah kii anaga aan ku dayan lahayn oo nahor socon lahay oo soo gali lahay wa biidnillaahi kariim ilaaha u bariyayna waa kii soo gali doono idinka inta fadhidiina da faataxada u martiin maanta qof walbana niidiis faataxa bisku mar intaas ayaan ugu filan waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow culimada meesha fadhida soo dhawaada gabdhaha sharafta leh oo soo libisto make up iyo wax walba soo hore u sameeyeen waa sameeyeen soo dhawaada gabdhaha waad sameeyeen soo dhawaada madaxweynaha waad soo dhaweyseen dhalinyaro badan oo salaam ku gaaray meeshaan fadhida waxaan idin leeyahay 2021 September Mandela October iyo September kulleeyta waa lagu kala bixi doonaa waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayaa madaxweynaha maanta intaan wadada jecel yihiin oo la garab taagan yahay xafladda ka horeysay madaxda dhan waa imaaday marka waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawow meen ku dheeraanay hadal badan waan qabi inaan si hadlo waa jecelahay laakiin waxaan bal hadli karin ba shucuurtii haysa madaxweyne Soomaaliyeey tooso isku tiirsaday habadiina taagdarane taageero waligiine Soomaaliyeey tooso isku tiirsaday habadiina taagdarane taageero waligiine السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرتي شرفت قيمة قاية على كسر غيب بس حفلة قروح البضان له وعن إذن الله مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحنو جوجنا حفلة دان أو قروح البضان له نسوق النمت سيدي أنو تاجر لهين مدحوينها مشرحة ومدحوينها حل دار كسوقيا عبد الله محمد آذن سلام الله وعن لنا عبد الله مدحوينه واتها ما أنت وحي كبل لوضة انت أنو مدى وحي كوكو تاجر سنتها إند مدحوينه صوماليا أدهو قامس عبد الله ما أنين لقى شيكيو يعني دتك اللبرة ما هو عبد الله نين بروفيسورة وأنين جامعة دي لفولي صوماليا معلن كاها انت بدل صومالي دي بدل كودا وفتمانته وأنيكي معلن كوها مركو عن لي عبد الله مرة بعد intaan waa bulshadii Nairobi ku dhaqnayd maadaama arintu xafladda ay anaga naftkayna ay xoogaa waqtigiisa nagu noqotay oo intaan in ka badan aan ku imaan lahayn maanta waxaan leenahay wixii dulduleelaha noola boogdhayo marka waxaan is leenahay odayaashayni inta badnayd maanta nin aroos aaday nin meel kale aaday noqotay laakiin intii joogto waa intii muhiimka ahaa waxaan leenahay iyagana hadalku waa iga dambeyn doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo marka waxaan ku leeyahay Cabdullaahi intaan walaalaha waxay kugu taageersan yihiin inaad noqotid hogaamiyaha Soomaaliya waxaana leenahay maanta wixii ka dambeeya madaxweynaha Soomaaliya ku leenahay soo dhawow waa ku taageersanahay waxa la wixii hili oo aan ku garab taaganahay waxaan leeyahay Cabdullaahi waa madaxweyne ninkaan in yani maanta ka wanaagsan oo aan dooran lahayn malaha bulshada Soomaaliya joogtana kulay media markay ka arkaan waxaan u maleeyaa inay leeyihiin ninkaan waa ninkii maanta Soomaaliya hogaamin lahaa oo dhibaatada ka saari lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركا أهرسا وحان أمهد عنا الله سبحانه وتعالى ماشا سوكا نكيني مركا اللباننا وحان أمهد عنا الشعب كان قروحنا بدنا الرقي يضمر بلاء حبلها أن قروحنا بدنا علماء دينا أو دقمينا دينا كديران مايو دكتور عبد الله محمد آدم سلام الله وأنا صاحبنا هاي مدة ديرنا دعوة اسكندنافيا كسوة شقين جرني مدبضنا جالية يوكينا كودا شقين جرني عدي دوني سدي توركنا وحضرته وانا دا عندما الله تم هذا مركه هوري انت از مركن كغدبو odayaashii hadlay ayaan la qabaa soo dhaweynta anigana waxaan leeyahay Cabdulaahi Maxamed Aadan
codkayga iyo anoo codka dadka inta wakiilka ah waxaan ku leeyahay soo dhowaaw codkeenna soomaalida meeshaan fadhiso codkii ay ku siiyeen waxaana rajaynaynaa inaad noqotid soomaaliya dhibta haysato ninkii ka bixi lahay xaaladda soomaaliya hadda aad ayay u qasan tahay waxaan rajaynaynaa dowladaha diriska ah sida walaalaheen jabuuti kenya iyo etoobiya inaad noqotid dadkii xidhiiri lahay diriska shareecadda islaamka waxay qabtaa xaq ay isku leeyihiin qofka gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado dirisnimada in la ilaaliyo waa xaq waxaana rajaynaynaa inaad dirisnimadaas qofkii ka shaqayn lahay aad noqotid dhibaatada soomaaliya hadda haysatana ninkii ka bixi lahayna aad noqotid damaca waa fiican yahay qofka ibni aadanka inuu u fakiro brofesor cabdulaahi maxamed aadan waxaan ku leenahay fikirka aad fikirtay inaad soomaaliya adoo mutacallima jaamacaddii la foole ee waxbarashada macallinka soo ahayd inaad soomaaliya waxaan rajaynaynaa guushaas hadduu ku siiyo inaad ma aragtay soomaaliya aad meel fiican gaarsiiso cabdulaahi inuu ahaa brofesor ka shaqaynayey jaamacadda la foole oo la yaqaano waxaan rabnaa inuu brofesor cabdulaahi ogaado dalkii dibadda in laga jecel yahay waxaan rabnaa inuu ogaado brofesor cabdulaahi in east africa laga jecel yahay iyo horn of africa ilaa etoobiya ilaa meel kasta laga jecel yahay uuna soomaaliya hoggaamin karo anigu waxaan dhihi lahaa cabdulaahi salaamullaahi madhin waxaan dhihi lahaa cabdulaahi soomaali dee waa nin keliya oo soomaali ah oon u maleeyo inuu waddanka si fiican u wadi karo oo arrimaha badi dhexdhexaadka ah oon dakana ebadkood cidna ka gelin ninka keliya oon doonayno inuu meesha qabto oo waddammada east africa iyo horn of africa isku xidho oo wuxuu ku soo bartay dibidaha iyo dalka dhexdiisa nagu hoggaamiyo haddii la iiga bartay inaan heeso iminka waxa weeyaan inaan meesha sharciga soomaaliya laga hago ama wax looga bedelo inaan ka mid noqdo si soomaalinimada igu jirta iyo wadannimada igu jirta aan u muujiyo ayaan maaragtay xildhibaan qaranka ummadda soomaaliyeed isku soo sharxay madaxweynaha haddaan taariikhdiisa dib u noqdo annagu isku reer norway baan nahay inta waxa weeyaan intaana dhalan inta dhallinyarta oo dhan ku dhowaad 22 sano 30 sano ayaan saaxiib nahay isnaqaanaa noloshayda intii u badnayd baan isnaqaanaa marka waxa weeyaan isagoona xil ama hadday noqoto Norway iyo hadday Ingiriiska noqoto aan ka hayn buu Soomaali aw guntiga dhisha iskaga dhigay marka waxa weeyaan inuu qarankana hogaamin karo waxa weeyaan waa la soo tijaabiyay Soomaaliyana waxay maraysaa qabkii ugu fiicnaa Soomaaliya way soo noqotay mugdi baan ku jirnay isqabsi baan ku jirnay maanta intan yara sidan waxa weeyaan damac baa ku jira kursigii kastiba 15 qof baa ku tartamaysa taas waxay ka turjumaysaa Soomaaliya inay tayo yeelatay oo inay tiro yeelatay oo mugdigaan ka baxnay marka waxa weeyaan madaxweynaha waxaan leeyahay leyd ka shidmay iyo waaga bariyay inuu isaguna dhankiisa dabkii baxaya dab lagu darsadaa Soomaaliya hoos loo eegayay hoos looma eego Soomaaliya iyada hoos u eegta dadka imika aan in leeyahay Afrika kalmad yar baan u oranayaa waxaan leeyahay inay nabadu marinkii xoranimo jidka loo maraayo tiirkii midnimaadiyo noloshow macaantahay dowladaha horow maray sidaay u maalaan iyaga ka marag furi midiyaha coolaadee dagalaysku mariya maydkoon la kala garan dhulka ooma goomo madha soo baxayo laga waayo midhihii mehanowga gaajada afrikada madowwe isku meherad seegtiyo kuwa soo mara garan murtida iyo heesaha waxa loo maldahayaa maangarataadiine dalka kii ka maqano naga maqal kuwa maanta joogo waad aragtay maansada madaxweynaha waxaan leeyahay guulayso waxaan uga soo duulay
dalkaygii hooyo dalkaygii dhiiggayga ahaa ciiddaydii hooyo aan uga imiday inaan garab joogsado walaalkay madaxweyne salaamullah soo dhowow baan leh asalaamu calaykum aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay farxaan xidig xajiskiibaba naga bixiyey markii heystii yareed oo waddaniga ahayd noo qaaday marka dee waxaan leenahay waa ninkaa waddaniga oo heesaha waddaniga qaadee isagana bal kursiga xildhibaannimada aan ugu ducayno inuu helo marka waa yahay dad aqoon-yahanaa iyo dad waddankooda maaragtaa u danqanaya haddii dalkaanu helo waxay noqon doontaa soomaaliya in ay meel walba ka sara marto marka waxaan ilaahay ka baryaynaa sanadkan dad wanaagsan inay u soo baxaan musharaxa madaxweyne cabdulaahi maxamed aadan oo runtii aniguba aan aad u aqaano waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin dalkiisa iyo dadkiisa u danqada oo aniga aan ahay nin aan aqaano kartidiisa iyo wanaaggiisa inuu maanta isku soo taagay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan leeyahay soo dhowow waxaan u malaynayaa maxamed aad baa looga sheekeeyey dadkii asxaabtii ahaayeen iyo odayaashii intaba waxaa laga hayaa waagii maxamed siyaad baa xaafaduhu ku wareegi jiray degmooyinka gobolka banaadir degmada shangaani ayuu maalintiga markaa waa la qudbeeyey nin kale baa loo dhiibay markaasuu wuxuu yidhi qodba haddee qaayo iyo qiimo aan leedahay xaaji qaamuusaa qaata marka qiimo iyo qaayo haddii aan leedahay oo yacnii loo soo dhowaynta ahaa hore baa loo qaatay waxaan leenahay soo dhowaada ugu dambayntii musharax madaxweyne brofesor cabdilaahi maxamed aadan salaamullah ayaa uga mahadceliyey dadkii ka soo qaybgalay munaasabadda lagu soo dhoweynayey walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin dhammaan marti sharafta qiimaha badan oo munaasabadan quruxda badan ka soo qayb gashay ujeedkeedan uu ahaa inay nagu soo dhoweeyaan magaaladan nairobi caasimadda dalka kenya walaalayaal marka hore waxaan idinku salaamaa mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib warka hordhiciisa horaa loo sheegay ujeedka aan laheennay waan halkaan u joogno runtii brofesor aweys oo dhinaca midigta iga taagan waa raggii macallimiintii jaamacadda ummadda aan isla soo shaqaynay runtii waa ku mahadsan yahay khudbadiisii qiimaha badnayd walaalkay farxaan xidig oo aad wada garanaysaana runtii waa ka hadlay wixii annagu aan nahay qofka aan nahay kulli waxaasoo dhan cabdifitaax oo jaaliyadda u k igala soo shaqeeyey waa garanayaa isagana wixii aan soo marnay hawl ah doctor cabdiqaadir colow oo isna nooga yimid waddanka austraaliya munaasabadan inuu ka soo qayb galo darteed waa ku mahadsan yahay suu u sheegay ninka la yidhaahdo farxaan xidig munaasabadan inuu goobjoog u ahdo xamar ugu yimid sidoo kale barnaamijka ninka xiriirinaya ood arkaysaan oo la yaqaano waryaha caanka xasan cadde wuxuu isagana u yimid xamar inuu munaasabadan xiriiriyo oo goobjoog ka ahaado aad bay saaxiibaday u mahadsan yihiin dhammaantood guud ahaan khudbadihii iga horreeyey oo ay odayaasha dhaqanka ay ka hadleen nuxurka waan ku mahadinaynaa runtii munaasabadan waxay ku aadanayd munaasabad dhallinyarada ay iskooda isu xilqaadeen dhallinyarada magaalada london magaalada nairobi ku nool khaasatan islii ee ku nool ayaa mataqaanaa oo guddoomiyaheeda uu joogo gudoomiye khaliif uu ugu horreeyo iyo walaalkeen cabdiqaadir buush oo xildhibaankeenna ah kulley aan rajaynayno mustaqbalka xildhibaanada cusub oo dalkan u soo bixi doona inuu qayb ka yahay siyaasi oo reer maraykan ahaa oo isagana abaabulkeeda hoggaanka ahaa dhammaan guddigii hawshan ka howlgalay oo gabdhi iyo wiilal bale aadaan ugu mahadinaya runtii sida quruxda badan oo isu xilqaameen walaalayaal waa idinkaga mahadinayaa wakhtiga dheeraa oo aad dulqaadka samayseen iyo runtii sida aad maaragtay uga dhabar adeegteen soo dhaweynteenna iyo wakhtiga qaaliga oo noo soo horteen aadaan idinkaga mahadinayaa garab istaaggiina mar walba leh min maalinka airboortka aan ka soo degnay ilaa maanta intuu dhexaysa aad sidaa noo garab taagnaydeen aadaan idinkaga mahadinayaa qof kasta oo ka qayb ahaa soo dhaweynteennana runtii waxaan ilaahay ugu baryaynaa runtii in ilaahay isagana darajo ziyaada uu ku siiyo halkaas walaalayaal ujeedkan u soo gudogalo nuxurka waxaa weeye anigoo runtii aanan iloobin bahda saxaafadda runtii aan rajaynayo runtii munaasabadan kabargaraynaya dhowr tv oo halkan iiga muuqato 5-6 tv waxaan rajaynayaa tv kastaba qolo kasta oo halkan kabargaraynaysa munaasabadan inay sida ay tahay ay ugu qayb qaataan soomaalinimada iyo midnimadu waxa waa hadafka la leeyahay iyo ujeedka qofka uu soo bandhigayo
in qof walba uu qaybtiisa ka qaato oo muhiimadeeda siiyo marka waan rajaynaa runtii baxda saxaafaddu inay muhiimadooda qaadan doonaan ay qaybta ay isku leeyihiin walaalayaal anigu sida horeyba saaxiibaday u sheegeen waxaan ahaa ninkaa Soomaaliya ka yimid Soomaaliya madax ka noqday agaasimiyaal iyo matqana xisbiye iyo haddii ilaahay kuu ron yahay gudoomiye xisbi iyo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada tiir oo hadda aan ahay oo aan runtii muddo ku soo shaqaynayay gudoomiye qurba joogta dalku ku soo noqotay aan ahaa gudoomiyihii jaaliyadda ingiriiska aan ahaa agaasimihii kuliyadda waxbarashada la foolo aan ahaa jaamacadda ummadda agaasimihii waaxda farsamada jaamacadda ummadda Soomaaliyeed aan ahaa meelo badan jaaliyadda Norway dadkii isu keenay aan ka mid ahaa runtii meelo badan oo Soomaalinimada laga rabay inaan ka muujiyo dadaalkayga iyo kartidayda iyo hadafka aan ka lahaa waa soo maray runtii waana ka soo gudbay iskuma amaanayo saaxiibaday baa hore u sheegay iyo inta maqan oo sheegi doonta walaalayaal markaan ogaaday inay ku habboon tahay taariikhdan casriga ee maanta aan marayno da'dayda iyo waayo-aragnimadeeda iyo aqoontayda iyo dadaalka ummadda Soomaaliyeed aan geliyey waxaa ii soo baxday inaanan ka baaqsanin aan ku habboonahay qayb ka noqon karo inaan noqdo musharax madaxweyne ee dalka Soomaaliya taasoo ah mid ummadda Soomaaliyeed ay u siman tahay qabiilna ayna gooni u lahayn qolana ayna gooni u sheegan karin balse qof kastoo muwaadin oo Soomaali oo adinka xataa idin ka mid ah maalinkaad u bislaataan inaad mas'uuliyadda qaadi kartaan ummadda Soomaaliyeed mas'uuliyadda aad u qaadi kartaan inaad soo sharixi karto khaasatan dhalinyaradan la hadlaya walaalayaal taasaa keentay inaan soo sharaxo gudaha Soomaaliyana aan ka soo cadeeyay magaalada Muqdisho aan isaga soo sharaxay halkana jaaliyadda ayaan ku nool dalka Kenya inaan la wadaago hadafkayga iyo hamiga aan leeyahay ayaa iyadana qayb ka ahayd waa idin mahadinayaa waan aaminsanahay runtii dalkeennu waa dal barwaaqo ah dadkeennuna waa dad Soomaalinimada iyo midnimadaba ku wanaagsan waxay u baahan yihiin hoggaan fiican oo cadaalad u sameeya amnigana ka qayb qaata oo qayb libax ka qaata ama amnigana suga Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay laba arrimood wax kale uma baahna dhaqaale ku filan waa haysataa badi bari bay leedahay xool ay leedahay waa wadan barwaaqo macdinta iyo nooc walba batroolka iyo macdinta iyo wax walba ay buuxaan waa wadan qani ah oo caalamka oo dhan laga og yahay waa wadanka kaliya oo maanta caalamka oo dhan marka la qiimeeyo waa wadan kaliya oo dadka caalamka indhaha ay ku hayaan loo arko waa barwaaqada dahan inay Soomaaliya tahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaaliya maanta amni iyo cadaalad wax kale uma baahna amni iyo cadaalad haday hesho ummadda Soomaaliyeed maanta way isku filan tahay waxaad arkaysaan jaaliyadan maanta ku nool halkan wadanka Kenya magaalada Nairobi siday ugu qayb qaateen horumarka noloshooda ama wadanka siday ugu qayb ugu yihiin ugu muuqdaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan runtii siday ay ugu karaamaysiin oo ugu horumareen ayaad ka garanaysaan marka dadka Soomaaliyeed maanta gudaha ku nool waxay diyaar u yihiin inay helaan inay ka qayb qaataan dhisidda dalka balse waxay doonayaan inay helaan hoggaan fiican oo caadil ah oo amnigoodana suga dadka nabadiidka ah oo wadanka maanta ku dambeeya ee jooga wadanka Soomaaliya ayaa runtii ah caqabada kaliya ee jiri karta laakiin wax kale dhibaato oo jira haba yaraatee lama arko waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo kullay khudbada aan jeedin doono maalinka masharaxnimada aan u soo istaagi doono oo ay imaan doonto aan 2 bilood ugu badnaan gudahood imaan doonta waxaan rajaynayaa inaan soo bandhigi doono hadafkayga iyo mataqaanaa tiirarka aan ka duuli doono haddii Ilaahay idmo oo aan soo bandhigi doono ummadda Islaameed ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagi doono haddii Ilaahay idmo balse hadda waa hordhac waxaan idin sheegaa oo kaliya inaan musharax madaxweyne dalka Soomaaliya musharax u ah doonayo ummadda Soomaaliyeed inuu samata bixiyo waxa ugu horeeyo oo hamigiisa koobaad u yahayna ay tahay amni iyo cadaalad waa amni iyo cadaalad inta kale ummadda Soomaaliyeed baa haysata waa barwaaqo dalkeena saasaan doonayaa